dowladda Soomaaliya ayaa maanta waxa ay joojisay diyaaradihii aadayay gobolada dalka Soomaaliya iyadoona dad aad u tiro badan maanta lagu xayiray garoonka diyaaradaha aadan cadde oo doonayay inay u dhoofaan qaybaha kala duwan ee gobolada dalka Soomaaliya. dowladda Soomaaliya waxaa la sheegay in ay diyaaradaha ay ka codsatay inay u daabulaan ciidamada dowladda Soomaaliya ee doonaysay in la geeyo deegaanka Ras Kamboni halkaasi oo maalmihii u dambeeyay dowladdu ay geynaysay ciidamo kala duwan oo qalabka sida. diyaaradahan ayaa waxa ay diideen inay askar taqaadaan oo ay geeyaan magaalada Ras Kamboni waxaana ay dowladda Soomaaliya ay u gudbiyeen in ay ka cabsi qabaan dhanka amniga garoonka Ras Kamboni waxaana dowladda Soomaaliya la sheegay in culays badan ay ku saartay in ay ciidamadaasi ay geeyaan laakiin dadkii shacabka ah ee doonayay inay u safraan oo saaka xilli hore soo galay garoonka diyaaradaha aadan cadde ayaa dib ugu laabtay guryahoodii. qaarkood oo aan la hadalnay waxa ay noo sheegeen in maalinta beritaa la ballamiyey si ay u duulaan ama ay u gaaraan magaalooyinka ay doonayaan inay u safraan. dowladda Soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyay waxa ay ku daabuleysay magaaladaasi ciidamo kala duwan oo ay ugu talagashay sida ay sheegtay inay la wareegayaan xarumaha ay baneeyeen ciidamada ATMIS waxaana dowladdu ay sidoo kale ay sheegtay in ay ciidamadaasi ay qabsan doonaan deegaanada ay weli ku harsan yihiin kooxaha Al-Shabaab oo ay sheegeen inay kala wareegi doonaan. maamulka Jubbaland war ay soo saareen iyaguna waxa ay sheegeen in dowladdu ay wado khalalaasyo dhanka amni darrada waxaana ay ku baaqeen mas'uuliyiinta diyaaradaha in aysan u soo doolin magaalada Ras Kamboni iyaguna ay qaadan doonaan wixii dhibaato uga yimaada. maamulka Jubbaland waxa ay ku amreen diyaaradaha in aysan imaan karin magaalooyinka Jubbaland. dowladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu eedeeyay in cunaqabateyn dhan walba ay saartay maamulka Jubbaland iyadoona joojisay diyaaradihii aadayay magaalada Kismaayo iyo sidoo kale magaalada Nairobi u kala gooshayay waxaana ay dowladda Soomaaliya loogu baaqay in ay joojiso cunaqabateynta ay ku soo rogtay. ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaana si kulul arrintan u cambaariyay waxaana uu ku tilmaamay go'aan gurracan oo dowladda Soomaaliya ay ku dhaqaaqday waxaana uu ugu baaqay in dowladdu aysan halis amni aysan gelin diyaaradaha ay u adeegsanayso ciidanka loo daadguraynayo deegaanka Ras Kamboni. waxa uu yiri waxaan aad uga xunnahay in shacabka Soomaaliyeed oo isugu jira haween caruur iyo waayeel ay maanta dhibanayaal u yihiin go'aankan oo ay garoonka diyaaradaha ay ku xayiran yihiin kumanaan muwaadiniin ah oo u kala safri lahaa gobolada dalka. hadalka ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dowladda Soomaaliya maanta ciidamo badan ay geysay magaalada Ras Kamboni iyo sidoo kale gaadiidka dagaalka iyo hub aad u tiro badan.